iga raaliya haddii dastuurkii aad leedahay waa aqoonsanahay oo dastuurkuna uu dhigayo sida Idris Casoowe garyaqaanku uu ka dhawaajiyey iyo Gabrielba in la bedeli karayo taasi meelay sharci ahayn lama bedeli karayo tan waa siyaasad weeyaan arrin qoto dheer baa loogu qoray laba goor oo kaliya loogu qoray marka qof ayaa macaansaday oo doonaya inuu weligii sii joogay hal la bedelo dimuqraadiyad ma aha midda kale waxaan ku darayaa hadiyo jeer magaalada Djibouti waxaan aragnaa 10 sanadood oo Ismaaciil Umar Geelle soo sameeyay wixii uu sameeyay oo dhanbaan sameeynayna balida raadiyoga maxaan ku leeyahay telefishinka ayaa markasta laga leeyahay dadkiiba ogol baa la leeyahay dadka halka ka soo baxay waxa weeyaan waa sida runta dad yar marka waxaan leenahay hadii nidaamka halkan ka dhisan Ismaaciil Umar Geelle madaxa uu ka yahay uu ogol yahay waa in uu ogolaada in dadka ka horjeeda in maaragtay mar saddexaad uu ku noqdo ka horjeeda waa inuu ogolaada iyaguna inay dariiqa u soo baxaan si nabada iyadoo dhagax tuurtuur ku jirin uu ogolaado way dimuqraad kasta sidaas way adduunka ogoshahay ay dadkaas inay yiraahdeen mar saddexaad inaad ku noqotid in ka badan oo ka horjeedna lama yeelayo oo waxa runa dadkaas haday soo baxaan in lagu furi doono rasaas oo maaragtay aan la ogolay telefishinkan maaragtay Djibouti walo aan hogaaminay xisbaan madaxgahay weligii ma soo gali karayo doodan iminka halkiina aan ka jeedinayno anagoo jecel wad ku wanaagsantiin dad noo furteen maxaa noo diidaya inaan anigu soo galo telefishinka Djibouti oo kale xisbiye kale aan soo joogsano ma dhici karto hadalada aan ka yiraahdo dibadda iyo amba shirar ka qaarkood aan iskugu tagno ayaa la bedelayaa aadan rabo xawaale sidaas uu yiri hada wixii aan yiri maaha marka waxa la meesha dimuqraadiyad baan u baahanahay aan ku daro waayahay Gabriel ra'iisul aan ku daro ee Faransiis ku yahay aadan markaati ka yahay waxa ku qoran markay bedelaan mandate dhowr bedeli mandate hada way furantahay marba tabaha marba shabaha marba lixa mar walba marka la bedelayo xeerku isbedeliyaa madaxweynahaasna way furantahay inuu mar labaad soo socdo qaybta labaad ee barnaamijkan dooda ayaa haddaba waxaanu ku eegaynaa waxyaabaha ay qabatay amaba aanu qabsoomin dowladda madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle waxaana qaybtan labaad ku bilaabayaa garyaqaan Idris Casoowe oo taageersan xisbiga madaxweynaha oo isagu ka hadlaya sida ay ugu muuqdaan waxyaabaha dowladdu ay qabatay 10 sanadood ee xilka ay haysay anigu kolkaan Djibouti joogay waxaan ogaa budgetku 20 bilyan buu ahaa maanta 80 bilyan oo faranka Djibouti maanta se in wuxuu socdaa 80 bilyan buu socdaa faranka Djibouti in budgetku kolkaa Djibouti tagtay anoo 10 sanadood ka maqnaa Djibouti siday ahayd 99kii iyo maanta de waxa u dhaxeeya faraq weyn dalkii uu ilbaxay dhaqaale badan baa soo galay horumar buu gaaray in dhibaatada kaliyateen ka arkay waxa weeyaan in shirkadaha soo degaya may in shaqaale badan ma qortaan taasina lama dagaalami karto anu waxaan u haystaa inay dawladdu wixii ay karaysay si poverty-ga loola dagaalamo ay samaysay way daaf baan hadalka siinayaa daaf sidaan qiyaas karayo aduu Idris Casoowe kuma raacsani taasoo ma kuma raacsani Idris uska garanaya aduuna iska indhatirayna inay waxba meesha aynay jirin isaga qudhadiisu halkan dabadda ma u joogeen haddii uu wadanku siyaasadda Ismaaciil Umar ay fiican tahay oo wuxuu ahaa shaqaale dawladeed oo sare ayuu ahaa runtu waxay tahay Djibouti ummad baa ku nool ummad baa maantadan hadlayna dhex joogto oo ku nool oo nolol maalmeedkii uu halkaa yahay iyada ayaa garanaysa inay siyaasadda Ismaaciil Umar u fiican tahay in kale haddii ay ummadda lagu kalsoon yahayna sheekada ma timaadeen ummadda ayaa iyadoo askarna garab joogna soo qasmi soo bixi lahayd oo noo joog Ismaaciil oo dhan lahayd wax laga oran karana way yaraan lahayd markaa waxaan ogsoonahay 10 sanadood run ahaantii 12 sanadood bay ku dhowdahay markay wax fulaynu iska yar yahay wixii waan sameeynaa la yirina haddaan carabka ku dhigto sidii halkan ay aadan iyo maxaa ahaydeen Casoowe gobolkan ay ka soo jeedaan Cali Sabiixi caska la yiraahdo warshadaha laga sameyn baa la yiri warshadii way wala xidhan yihiin warshadii dhagaxa warshadii kale sibirka in mid socota ma jirto tukalo biyahana way laan garanaysaa xagga kale ee boorarkan lagu faanayo waxaan ognahay in amal la'aantii ay amalkii ku soo yaraanayo dad baa isku daray xitaa maalinta dhaweed boorka dooraara la yiraahdo amalkii soo yaraanaya awgeed
afar dekadood baa la tilmaamaa, afar laami baa la tilmaamaa. dee dal maaha afar laami run ahaantii. dal waxa weeye waa horumar dhaqaale, waa horumar bulsho, waa horumar siyaasadeed oo dimuqraadiyad ku salaysan. haddaad lacag haysan ood maanta kugu dhaco shil baabuur kugu dhaco oo dhakhtarka lagu geeyo, lacag adood bixiya ma laguma daweynaya, halkaa bay naftu kaaga bixi. daaf marka Djibouti waxayladii ku ballan qaaday Ismaaciil Cumar 1999 biyuhu waa goobaabsi, maciishadu cirkaabay maraysaa, guriyeynta iyada hadalkeeda iska daa. afar qof oo run oo meesha boobtaa way jirtaa oo si fiican u nool. run ahaantii laba duniyood ayaa Djibouti saddex yaala. afar qof oo cirkaa tagtay oo aad u nool ood moodo inay meel kale ku nool yihiin, iyo 80% haddayna ka badayn ummadii beerka dhulka ku haysa. runtu Djibouti waa taa oo dhaxaga maantadan wala hadlaynana oo dadka u dhaadhaco xaqaa'iqa u dhaadhacana waa uu soo arkaya. waa wax qoran oo hay'adaha adduunku ay qoreen, reportyo badan baa laga qoray Djibouti. daaf waayey Gabriel baan hadalka siinaya. Gabriel, labada caalame uu tilmaamay maanta Djibouti inay ka jiraan daaf, qolo cirka martay iyo qolo dambaska. adigu ma qabtaa? waan qabaayo aan kala basanne dadka adduunyada dhammaan la qabna. ilaahay wuxuu yidhi shanta afarood dadku de isma waleeka, taas aaqirayo waxbaa ka jira. waan dadaali karaynaa, laakiin intaa uu sheegay hadduu dafirayo aan leeyahay meelba lama gaarin. mid baan kuu sheegay afrikadan kale annaga waxaan ku dhaadnahay xagga dawada, xagga maxaata ninka shaqaystaa wuxuu qaataa biltil. intaasoo wadanoona hareereynaya wadano biltil ma siiyo dadkiisii shaqaalihi. waa markay howlgab noqdaan lacag la siiyaa ma jirto? la siiyaa ma jirto, annagu baa siina eekada hawdheed. xafiiska ay ka qaataan waxa ummad hortugan subax kastaba, waxa haween agoona hortuman ay suud iyo suudha ku taala, iyo sida loo sii jiidayo loo soo jiidayo waa mid laga yaxyaxa weeyaan. Gabriel haddaan indhaha la iska xidhayn hadalka markaa ku siin doonaa daaf ku faani kartiin oo Ismaaciil Cumar ku daafici kartiin ma jirto. waxaan la daafici karaynin waa waxaan la daafici karayn. daaf markaaga hadalka waan ku siinayaa. Gabriel baa watay u daa. malaha hadday beero iyo macdan iyo dheeman aan leenahay, malaha sida afrikaan isu leenahay yaan aniga igu dhaarta. ilaahay xamdigii intaa yar aan ku noolno, iimaanka aan ku qabno ee aanu maamulanayno yaa nagu filan. haddii dheeman iyo petrol iyo waxawba aan leenahay malaha war malaha sida afrikada kale iscunaysa yaaban isku dhammaan lahayn. laakiin waad kirsan tahay xildhibaan. dawladda qaar baan ku canaanana, project baan ku tuurnaa, xor baan nahay, qaar waanu yeelnaa saban meesha iskama tagna. qaaro badan baan ku diidna project dawladdu ay keento. waaye aadan rooblaan hadalka siinaya. waaye waxa weeyin horta odhan kari maayo yani Ismaaciil Cumar Geele 10 sano uu joogay wax alla wuxuu qabtay ma jiraan. odhani maayo wuxuu qabtay. marka daaf kuma raacsanita adigu? yani wuxuu qabtay ma jirto, yani aniga de odhan maayo baan ku yidhi. laakiin haddana marka la eego dhaqaale dal, marka loo kuur gala la eego, dhaqaaluhu wuxuu ku dhisan yahay warshado badan buu ku dhisan yahay, beeruhu ku dhisan yahay, macdanaha laqoduu ku dhisan yahay. marka waxay ka dhigan tahay in dhaqaale raaga ma dhisno. waxa weeyaan waa dhaqaale yar bari ilaa saxan baan ku noolaano. nin maaragtay dibadda Dubai ka yimid baa jiro, wuxuu abuurayaa 5 maaragtay shaqaalaha wax yar oo caynkaas weeyaan sida runta. laakiin ilaa imika dibadda waxaan u dirno Djibouti ma jirto oo wax saldhig dhaqaale ma jiro. laakiin ugu weynaan odhanayay waxa weeyaan waxba ma uu sameeynin, gebigiisaba ma odhanayay. waxa weeyaan raggan RBB-ga sida Gabriel kamida ee odhanaya dalka Djibouti qof kale oo wax sameyn kara kuma noolade wax la aqbala miya. Djibouti waa dal magaala, waa dal maaragtay meel bada ku yaala, dad macruufa ku nool, dad wax bartay baa ku nool. annaga undama odhanayna inteedan diidan in la bedelo dastuurka. Djibouti waa dal maaragtay magaalo weyn aad loo yaqaano, adduunka oo dhan la soo korsay. miya laga waayay Djibouti oo dhan dad kale oo qabta mas'uuliyad mayna jirin sida RBB Gabriel leeyahay. 10 sano buu fiicnaa, waa inuu sii joogo. sidee loo arkayn reer Djibouti inay ambarrag ha noqoto ama dumarba ha noqotee dad kale oo bedeli kara oo wax walba ka samayn kara ka sii weyn wixii Ismaaciil Cumar ma jiri karo meena leeyihiin. baayna leedo waa loo furay indhihii maaragtay meelaha dhowr sagan iyo loo furay markaas iyo indhihii indhalaantii ku soo noqday. marka alkale wax la weydiiyay waxa hiblaya maraya meesha leedahay
kolkii horeysay indhaha loo furay waxaa arkay digaag buu arkay digaagii muu ka wen yahay buu yidhaa marka hadda ma waxayna leeyihiin ismaaciil cumar oo keliya unbaa jabuuti jira su-aashaas lafteeda ayaan weydiinayaa garyaqaan idris casoowe oo stuudiyaha ila fadhiya miyaanay dimuqraadiyadda caafimaad u ahayn iyo koboc in dadka kale reer jabuuti sida uu sheegayo aadan rooble fursad la siiyo waxay aniga igu muuqataa in dimuqraasiyaddu inay baahin weyn loo qabo dimuqraasiyaddu siday u shaqayso waa inay dadkeygii heshaa xusbiyadu waa inay noqdaan xusbiyo qaran anigu waxaan ogahay sanad kolku waa 95 laba xusbiyoo qaranaa jiray waa 95kii laba xusbiyoo qaranaa jiray oo dadka oo dhan ay iska dhex arkayeen xusbiyadaasi waxay ahaayeen xusbiga talada haya RPP iyo xusbiga PRD xusbigan waaga anigu aan ku jiray xusbi wuxuu ahaa national marka mucaarad baad ahayd soo maaha PRD ha waxaan ku ahaana waxa weeyaan dalkoo dagaal galay aan ka soo horjeedna